sanadkan 2020 ku koobnaan hal ana ku kalsoonaanay shaqada imika joogto waayo shaqada imika hayso waad waayi kartaa ama waa laga ceelin karaa haddaba si aad arrinkaasi uga hortagto waxay u baahan tahay inaad samayso ilooyin dhaqaale oo ku saamaxayso adigoo shaqada caadiga wado inaad lacag yaraada samayso السلام عليكم magacaygu waa maxamed champion halkan waxaan kusoo gudbiyaa akhbaarad la xiriira teknolojiyada casriga ah muuqaal samaynta qarshaad si lacag loo sameeyo blogging adigoo guriga joogo kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta oo aan uga hadlayno channel dhaqaalo oo aad samayn karto adigoo guriga joogo walibana shaqada damaanlaha sii wato sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa halkaad ka baran karto iyo qaabka aad ku bilaabi karto shaqooyinkan oo qof walba uu samayn karo si gaar ah uu doonayo inay wax ka bedelaan dhaqaalada sanadka 2005 haddaba sarreeyay kuwaad waa freelancing haddaba waa maxay freelancer xirfado madax banaan shaqada uu qabanayo qofku uu qabanayo iyo halka uu ka qabanayo xirfadaha madax banaan wuxuu u shaqayn karaa dhowr qof isagoo u shaqaynaya kumbaniyo kala duwan isagoo gurigiisa jooga badanaa lacagtii waxaa lagu heshiiyaa in saacadu qofka shaqaynayo xirfadaha freelancerka ku shaqeeyaan waxaa ka mid ah qoraalka iyo tifaatirka nashaqadeynta garaafka barnaamijyada kombiyuutarka iyo websaytyada dafaatirada muuqaalada iyo sawirada sidoo kale maamulka baraha bulshada haddaba goobaha ay ka shaqeeyaan freelancerka ama iska diiwaangeliyaan waxaa ka mid ah fifa waxaad kusoo bandhigi kartaa xirfadahaaga waxaadna ka heli kartaa shaqooyin yar oo si fudud loo qabto upwork waa madal ku oggolaanaysa inaad u tartanto shaqooyin kala duwan oo xirfado gaar ah leh freelancer.com waa madal kaa caawinayso inaad ka hesho mashaariic kala duwan oo la xiriira xirfadahaaga haddaba sida loo noqdo freelancer si aad u noqoto freelancer waa inaad aqoonsataa xirfad oo aad ku wanaagsan tahay waa inaad samaystaa profile ama portfolio oo aad kusoo bandhigayso xirfadooyinkaaga ku biiri barnaamijyada ama goobaha freelancerka loo talgalay u qabo shaqooyinkaaga si tayo leh oo ay macaamiishaada ka helaan freelancerka wuxuu helaa xorriyad dhaqaale si noloshiisa dhaqaale u wanaajiyo waa shaqo qof walba bilaabi karo haddii uu leeyahay xirfad ama hibo gaar ah saraasalkeena labaad waa youtube-ka waa aalad lagu soo gudbiyo muuqaalo sida muuqaalka camal kaasoo aad ka samayn kartid lacag run ahaantii dad badan youtube ku bilaabaan qaab saadhaasal ah balse marka dambe shaqooyinkooda caadiga ka soo tagaan una soo go'aan shaqada youtube-ka sida aad ka dheehan karto muuqaaladan wuxuu ahaa injineer lacag aad u yar ayuu ku shaqayn jiray oo weliba waqti badan uu ku maqnaan jiray maskax ahaana dishay muuqaalkan ayuu ku sheegay in uu shaqadii ka tegey xooggiisa dhanna uu saarayo youtube way saadana youtube bilowda bilow inaad hayso mowduuc dadka xiisanaya sidoo kalena aad taqaanid sida muuqaalka loo sameeyo wadaagaajinta duubista iyo tifaatirtaba haddii aad istaqaanid waa samayn karta youtube guulaysto sarreeyay saddexaad waa blogging waa mareeg isku gudbiyo xog taasoo ka kooban qoraallo sawiro iyo muuqaallo waana qortaa mowduuc aad khibrad dheer u leedahay sidoo kale xiise leh wadka soo jiita dadka mareegta ku qora waxaa lagu yeeraa bloggers haddaba sidee blogging loo bilaabaa kuwa waa inaad marka doortaa niche dooro mowduuc gaar ah oo aad xiisaynayso sida caafimaadka teknolojiyada ama safarka mowduuca aad doorto waa inuu xusuus leeyahay akhristayaasha labo waa aad xulataa madal ama platform waxaad helaysaa free platforms sida blogger.com wordpress.com aad ku bilaabi karto si bilaash ah u samayso bloggaaga magac domain dooro magac u gaar ah oo si fudud lagu heli karo hosting haddii aad doorato wordpress.org waxaad u baahan tahay adeeg si loo keydiyo maragtaada waxaana kaa saacidaysa bluehost ama siteground sidoo kale website-kaaga waa inuu leeyahay nashqad qurux badan dooran nashqad qurux badan adigoo dooranaya qayb templateska waa inaad qortaa qoraal sujiito oo waxtar xaysiin ku sameeya bloggaaga adigoo isticmaalaya baraha bulshada facebooka twitter iyo instagram adeegso oo baro barnaamij CEO oo loo soo gaabiyo search engine optimization si dadka xogtaada uga helaan google haddaba sidee lacag loogu sameeyaa blogga waa inaad dalbataa ama ku xirataa xaysiin AdSense ku biiri google AdSense si aad xaysiis uga hesho kadib lacag aad ugu samaysid blogging waa hab sahlan oo qof walba ugu bilaabi karo haddii uu leeyahay fikrado uu jeclanayo in dadka la wadaago waxaa muhiim inaad joogto noqoto oo si taxadar leh u soo bandhigto waxyaabo tayo leh waxaad ka bilaabi kartaa maanta adigoo ogsanaya madal bilaash sida blogger.com ama wordpress.com sarreeyay afraad waa dropshipping waa hab ganacsi online ah oo aad ku iibin karto alaabta qofka leeyahay ganacsigan waxaad ka bilaabi kartaa lacag la'aan sababtoo adigna la soo iibsato oo qarashkiisa ma baahan kaliya waxaad samaysanaysaa mareeg aad ku iibsatid
alaabtaad sida Shopify ama WooCommerce. kadib waxaad soo qaadaysaa alaabaha ay iibinayaan surprise. tusaale barirta Alibaba iyo AliExpress ayaad ka big soo dhigaysaa alaabaha ay hayaan. kadibna website-kaaga ayaad gelinaysaa adigoo xogaa lacag dulsaaranaysid. kadib qofka hadduu alaabtaas ka iibsado marirtaada adiga lacagtaada ayaad qaadanaysaa faa'iidada. macmiilka alaabta waxay u geyn doonaa oon u rari doonaa marirta kasoo koobiyeysay ee AliExpress ama Alibaba. ugu macmiilka ma ogaan doona in alaabta shirkadda Alibaba u keentay ee sumadaada ayaa alaabta lagu qori doonaa. ganacsigan waa mid aad u faa'iido badan haddaad si wanaagsan u fahamtid. sidoo kale waxaa lacag samayn kartaa adigoo hordaayo. sarifkeena shanaad ama midka ugu dambeeya waa affiliate marketing. affiliate marketing waa qaab ganacsi oo aad ku kasban karto lacag adigoo kor u qaadaya alaabooyinka ama adeegyada shirkadaha kale. marka qofku uu alaabtaada ka iibsado xeryaha gaarka waxaad heli doontaa commission. haddaba si aad u bilowdo marketing waa inaad ku biirtaa barnaamijyada affiliate marketing. ku biir barnaamijyada sida Amazon Association, Clickbank, Sharesell ama CG Affiliate. marka hore waa inaad xirtaa alaabo ku habboon niche-kaaga. dooro alaabooyin la xiriira mawduuca aad ku xiriir tahay. hubi in alaabta ay leedahay qiimo fiican oo suuq leh. abuur xiriiri affiliate. goobaha affiliate-ka waxay ku siin doonaan URL oo ah link gaar ah oo xeryaha leh. si aad u heshid macmiil waa in alaabtaada ku xayeysiisaa aaladaha baraha bulshada. tusaale haddaad broker tahay qormo xayeysiinayso ku qor adigoo xeryaha isticmaalayo. ama haddaad YouTuber tahay samee muuqaalo alaabta sharaxayo dadkana faraya inay lafaaqa ka iibsadaan alaabtaada. ku xayeysiiso dhammaan baraha bulshada sida Facebook, Instagram iyo TikTok. ugu qof kastoo alaabta ka iibsado xeryahaaga waxaad heli doontaa boqolkii iibkii. wax lacag ma baan si aad ganacsiga u bilowdo. sidoo kale waxaad lacag samaynaysaa adigoo hurdo. haddaba waxaan soo gaarin qaybta dhexe ee barnaamijkeena maanta ee ciwaankiisa ahaa samayso ila dhaqaalo adigoo shaqada caadiga wato. sidaan kusoo sheegay shaqooyinka shanta oo kuwa qof kastaba bilaabi kara sarta 2005. ha sugun ilaa aad ka weydo shaqada caadiga ku bilow ila dhaqaalo aad ku xoojin karto noloshaada. haddii aad jeclaatay macluumaadkan fadlan muuqaalka like saar. haddii aad nagu soo biirin subscribe saar. ula sheegalaysa xataa si dadna u faa'iidaystaan. Thank you for watching.